war degdega dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ogashahay banaanbaxa birita lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Waxa ay sheegtay in dadweynaha loo diyaariyay garoonka kubadda cagta ee Stadio Konis ee magaalada Muqdisho halkaasi oo kaliya lagu banaanbixi karo. Ilaa iyo hadda lama oga in arintaasi ay ogolaadeen dhinaca kale ee mucaaradka oo sheegay in meelo kala duwan oo magaalada Muqdisho ah ay ku qaban doonaan birita 7 subaxnimo laga bilaabo barnaamij xoogan oo looga soo horjeedo barakicinta iyo burburinta dhulka iyo musuqmaasuqa dowladda federaalka Soomaaliya. Hase ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay haddii meel kale lagu qabto banaanbaxa in iyaga iyo banaanbaxayaashuba faraha ay isla geli doonaan, wixii ka yimaadana ay qaadi doonaan dadka soo abaabulay banaanbaxa oo ay ugu horeeyaan xubnaha mucaaradka ah ee shaaciyay in la banaanbaxo. Waxa kale oo dowladdu sheegtay in banaanbaxo loo baahan yahay in si nabadgelyo ah uu ku dhaco, la isuguna imaado goob cayiman magaalada oo dhan aan la fawdayn, laakiin loo baahan yahay in hal meel oo cayiman dadku ay ku dhiibtaan aragtidooda iyo fikradooda ku aadan banaanbaxa si uu banaanbaxu u noqdo banaanbax nabadeed oo wax rabshado ah iyo wax dhib aan wadan. Dhinaca kale mucaaradku waa ay diidan yihiin taas. Waxa ay doonayaan iyagu degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir inay ku qabsadaan banaanbaxa qolo walba maadaama ay hore isu kala qaybiyeen maantaba oo safaf kala duwan ay aadeen oo ninba qayb degmo laga soo abaabulayo. Waxaa la sheegay in iyaguna aysan wali ogolaanin arintaas. Hase ahaatee waxaa hadlay oo dhinaca dowladda u hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Mungaab iyo waliba wasiirka wasaaradda amniga Fartaag oo labaduba shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho. Dowladda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaheedu uu dhamaad yahay ayaa hadda waxa aad moodaysaa in cadaadiskii ugu ballaarnaa ay dareemayso maadaama banaanbax laga dhigayo gudaha caasimadda oo ah meesha kaliya oo dowladdu ay degan tahay. maamulka gobolka Banaadir wuxuu si buuxda u taageersan yahay xorriyadda dhaqdhaqaaqa tan ra'yiga iyo isku imaantinada. Arrimahaas oo ah xuquuq oo si toos ah u damaanad qaadayo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ka maamul ahaan waxaan fasaxaynaa oo aqbashanahay banaanbaxa lagu baaqay haddii uu yahay mid nabadeed. Haddaba maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha ammaanka waxay isla garteen maamulka gobolka Banaadir wasaaradda amniga qaranka iyo hay'adaha ammaanka waxay isla garteen si loo ilaaliyo xasiloonida magaalada loogana hortago wax kasta oo khatar ku ah amniga dhibaato kaga imaan karto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan xamar in banaanbaxaasi loo asteeyo laguna qabto Stadio Konis ama Stadio Engineer Yariso. Haddaba adiga sidee u aragtaa daawade in la isugu yimaado Stadium Konis iyo in meelo kala duwan lagu qabto banaanbaxa? Sidee u aragtaa? Fikradaadu maxay tahay? Wixii aragtidaada ah qaybta faallada nagula wadaag. Yaa saxan ma dowladda saxan mise mucaaradka ayaa